السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة فيديو كان قفل بو داودي إلا قصي هاد لورتا أما باهنا لك حوغا إلا قفل بو فكر كدو كدي بريا وهوي سية تنجرع يا أبسيطة كلو سية تنجرع وسرر صارن يقول يرى اللبي تنجرع عدا شرفت لما ديبان اي كدلاتي سيدا انغا نقول دغان gobolka banaadir nagala dagaalan walaalo iyo wax walba iyo yaa taxaleysteen oo la isaga wada ciyaaro gabartooda oo Yurub ku nool baa gabar kale isku dhaceen oo reerka dashish ka soo jeedo wax yar bay murmeen oo way isku qabiil caayeen laba habeen koor waa kala daneysteen reerkii dhamintay carreena leena sidee wax loogu sheegi karaa uga iskeena markaas baa rag badan intay u tageen saddex u booday bay wiil kale halka waxa way ka saareen kob يا إلهي يقانا قال كي فيسبوك حتى عبار مركي لا داود حتى اسا هودا كبخش لما اقرو كل فيديو بس قال كي اكو ديداي حتى 6 سو دغت فيديو وروحو قال كا على الحماها با دد Soomaali ku dhaqmayaan marka hawiyo waxay arkayaan dishiishe ma groupka ciyaar facaalimiya waa maxamed tuug cagweyna maya waa qabiil waaye oo Soomaaliyeed ana baa dad waa TikTok ku bartay wax walba baranaysa hooyo ayaa hadda koor waxa la yiri oo wiligeed wax dhalan baatiri ilaahu u wadsiin markaas baa ilaahay wuxuu siiyay wiil isla markii ubadkii hooyadii buu aflagaad xun ku tuuray markaas inta ilaahay nagu shibi dishiisha marka dadkii isbaraayeen maalintii ugu horeysay rabeen dadkii inay isbaraan waxa waa hadal xuma isku bareeno islaan siiyay jira iyo oday siiyay jira iyo wiil yar oo 12 jir bay madaxa ugu istaageen meel xun bay ka bilaabeen war beesha sharafta leh ma dhibaan war sharaf iyo qiimo leeyihiin bal raal aad dadka Soomaaliyeed dhan baa idinka damqaday raal aad idin leeyahay dad gun ba halka geystay marka waxay qabteen afar cunugay qabteen afar cunug oo ciyaal banooni meesha mareysay waxay dhaheen kaalaya bal maxkamad inta soo taagan si jeesta hooyo iyo aab iyo wiilkiis yariisoo 12 jir oo banaanka la keenay wajigooda marka video way ka doobteen ayagana video way ka doobteen baraha bulshada ku faafiyay sabab taqaana marda mahna cayn hana la barto waay maxaa yeelay xayta nin wax u hanjibay ee hadana duubay xayta waa ciidan dhanaa lagu leeyahay qoray wate xayta way afarta cunug ee la qabtay ee la yiri waa wala soo qabtay dadkii arinta geystay maxaa banaanka loo keeni waay oo nala tus waay maxaa loo qariyay maxaa sharaftooda loo ilaaliyay tuug sharaftiisa la ilaaliyaa cidana ka baranayna tuug sharaftiisa la ilaaliyaa markaas aan nagu qanciyo ciyaalka xaafadda la yiri bal si jeesta oo dambiga madaxa saarta sharaftiina banaanka lama soo dhigay hooyadan iyo aabbadan sharaftooda banaanka la keenay markaas oo loo hanjabaayay madaxa darbiga laga saarayay si xun la yeelayaa banaanka la keenay markaas ilmo yar la leeyay jeesta taa waxay ku cadeynaysaa dadkii in gacan lagu heenin balse la qancihaya dadka la qancihaya bal maxkamadii hooyadii aabii joogay ee dadka la tus aaba siiyay jir ah oo waxa la leeyahay gabadhaada hadii ay cishooyso waa ku gubayna waa ku toogayna wallahi yaa buu والفيري فيديو لما سيد داو كر قفك من ابن ادك wuxuu leeyahay way qalbi buu leeyahay way ku gubayna halay gabadha hadii ay cishooyso ku wixina asaagisa hooyada dhanka lagu siiyay video dhameystir TikTok iyo la daaragto waayaabeysa taas baa lagu darbay anigana waa daawateen marka waa dad aan xishoonin marka dad baa ku dhahayo qabiil ya loo dhihin maxay leeyihiin ugaaska u dagaalamayaan hadda maxaa noola keenay afar cunugo ciyaal sports aan noola keenay waliba banaanka lama keenin wajigoodii inta la sii jeediyay leeyahay tuugidii waa la soo qabtay ma banaanka la keeno oo la wareysto oo sababta la weydiiyo sabab hooyadii aabii boo la keenay waa qancis micna dadka la qancinaya hooyadii aabii meesha ma joogan ma dhihi kara hebel oo ay kaasoo ay mal dhahay maxayna u duubeen in dishiishe oo la baro dadka oo la shaaciyo oo share out loo suubiyo barasho wanaagsan waraawiyaha ku taagan maanta dhan dishiishe maxay yihiin ma group ilaahay ku madra ciyaar faacaya ma tuug cago weyn oo group wata maya waa qabiil anaga waana la baray TikTok aan ku baranay barta barasho wanaagsan maanta laga bilaabo waa la bartay baro idan qaade reeraha masaakiinta u dhaama oo alla ka cabsada dal gobolka banaadir inay la degiyihiin waxa waaye maanta yaa taaleysma dhaho saas baa la isku dhukooda raashidka la isla cunaa wadada isla marna ina isla dhalnay naga tahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ya ilaahi yaqaana